waxaan marka hore rabaa inaan qof walba ku salaamo maqaamka uu ku fadhiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan ka bacdi mashruucani waxaan u malaynayaa muhiim buu u yahay bulshada waxaana culeysku sida hadda la wada qirayo uu fuulayaa guddoomiyaasha degmooyinka in maamulka la daadajiyo oo dowlad santara iyo mid state iyo mid kulli intii laga tago mujtamaca ay gaadho waxaa ku jira danta guud bulshadu markaasi waxay dareemayaan lahaansho marka ay arkaan inay iyagu taladii wax laga weydiinayo degmooyinku degmo waliba way isku filaan kartaa waxbay qabsan kartaa waxaa ka mid ah hadda qeybta siida ah ee saddexaad degmooyinka iyagu dakhligooda ururiye ee meel la yaqaana ku baxa ee si uu dariiq ay u marto waxay soo xareeyaan wax la eg baa la siinayaa mar walba waxyaalaha lagu tartamay ka mid tahay marka guddoomiyeyaal iyo maamulka degmooyinka waxaa la rabaa waxa degmooyinka iyo sistamkooda maaliyadeed iyo dhaqaalahooda intii la sugo magaalo walba marka annaguna waxaan ballan qaadaynaa waxa degmo walba ka soo xarooda inaan wax kabno mooye inaan wax ka raadinin inay noqoto wax dadka wax loogu qabto jid baa lagu samayn karaa magaalada gudaheeda dhagxantana lagu dhigi karaa ceelal baa loogu qodi karaa wax walbaa loo samayn karaa laakiin noocii burburka dowladdu markuu dhacay waxaan isdaba wareegee dhaqaaluhu meelu ku baxay aan la garanaynin 22 walda isu daba fadhida intay ka baxdo in dariiqa la maro saxda oo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda kale arrimaha gudaha mashruucan mas-uulka ka ah ay ka wada shaqeeyaan balarta qolo waliba say sii ku noqon lahay deegaanada la qabtay cusub iyaga la garay oo wejigoodu waa wax la garanayo laakiin kuwa gacanta ku jira haddana weli baltanku ku jiro iimaankooda uuna sugnayn iyagaa u baahan in wax badan markaa guddoomiyeyaal mashruucani waa mashruuc la doonayo dadweynaha inay taabto lahaansho ay dareemaan odayaasha dhaqanka ururada bulshada haweenka dhalinyarada inay qolo waliba dareento wasaarad walibana roolka ay ku leedahay sida ugu fiican ay uga qeyb qaadato taas waa mashruuca waana furanaynaa insha allah waxaan rajeynayaa barnaamijkana inuu siduu yahay u dhaqangeli doono cid walba oo qeyb ka ana waxaan rabaa inay u fududeyso degmooyinka iyo guddoomiyeyaasha shaqaday qabanayaan laguna dabagalo lagu daynin korkana laga firiyo lagala socdo magaalo walba iyo maayar walba iyo waxaa lagu qiimeyn doonaa meeshuu joogay intuu joogay iyo wuxuu ka qabtay